بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii barbaarta oo toddobaadkiiba aad ka barateen inaad ka daawataan Astaan TV barnaamijkeena barbaarta alaba waxaanu ku soo qaadanaa qodobo markaasi bulshada muhiim u ah toddobaadkan haddii ay baraali ka noqdo waxa aanu barnaamijkeena ku eegaynaa shaqo la'aanta haysata dhallinyaradeena Soomaaliyeed qaar ka mid ah talow shaqo la'aanta maxaa keenay yaa mas'uul ka ah in dhallinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan noqdaan shirkadaha gaarka loo leeyahay kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan shaqo la'aanta haysata dhallinyaradeena Soomaaliyeed maxaa keenaya dhalinyaradu inay ka haajiraan dalka inkasta oo sanadihii ugu dambeeyayna ay aad iyo aad u yaraadeen arrimahaas oo dhan ayaanu barnaamijkeena haddii ay baraali ka noqdo ku eegi doonaa waxaana marti iigu ah barnaamijka toddobaadkan ustaad Saacid Xaaji Aadan oo ku takhasusay maamulka iyo maareynta ustaad Saacid marka hore ku soo dhawow barnaamijkeeni barbaarta aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay Xasan Yufle iyo dhammaan wariyaasha ka howlgala iyo maamulka guud ahaan TV-ga Astaan runtii aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan idinku bogaadinayaa oo runtii aad ugu faraxsanahay sida aadka u wanaagsaneed bulshada ugu adeegaysaan marka koobaad runtii aad baan idinkaga mahad celinayaa sida aad igu soo dhaweyseen barnaamijkan sida igu martiqaadeen waan idinkaga mahad celinayaa waana ku dhowahay barnaamijka walaalkay aad ustaad Saacid aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadanaysid su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena amaba qofkana daawanaya talow ku dhalan karta waxa ay noqon kartaa yaa mas-uulka ah shaqo la'aanta haysata ee dhallinyaradeena Soomaaliyeed waa su-aal u baahan in jawaab loo helo dhalinyaro badan ayaa dalka muxuu ahaayey joogta shaqo la'aan ay ku haysataa marka yaa mas-uulka ah shaqo la'aanta haysata dhallinyaradeena Soomaaliyeed aad baa u mahadsantahay waa su-aal muhiim ah runtii waxaad weydiisay yaa mas-uulka ah shaqo la'aanta haysata dhallinyarada Soomaaliyeed san filayo dhowr asbaabood baan siin karnaa mas-uuliyaddana saari karnaa haddaan soo koobo tusaale ahaan amni xumada iyo nidaamka Soomaaliya nidaamka dowladnimada Soomaaliya aan weli stable ahayn ayaan yani qayb ka dhigi karnaa inay wax qayb kale ku leedahay tusaale ahaan qodobka ugu weyn ee horseeday inay yani dhalinyaradu shaqo la'aan ku dhacdo waxa xasilooni darrada runtii dalka yani ka dhacday iyo yani nidaam siyaasadeed oo runtii ayuu ugu dambeeyay nidaamka siyaasadeed oo aan ahayn mid yani stability yani political stability aynan jirin runtii qayb weyn ayay ka qaadatay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada runtii waxaa kaloo muhiima in la xuso oo qayb weyn dhalinyarada shaqo la'aanteeda ka qaatay kororka baraaruga iyo runtii tayaxumida waxbarashada Soomaaliya oo runtii aad iyo aad ayadana muhiim u ah in la xuso kororka baraaruga waxaan uga jeedaa tusaale ahaan baraaruga waxbarashada sii kordhaya muddooyinkii ugu dambeeyay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaaliya waxay qayb ku yeelatay in shaqada yaraato maxaa yeelay mar walba dad badan soo baxaan jiil cusub soo baxaan aynana jirin nidaam dadkaas kala maareynaya kala xalinaya constitutionadii dawliga ahna ayna si fiican u nidaamsanayn runtii waad garan kartaa way sii kordhaysaa tayada runtiina aad bay u liidataa oo waxaad arkaysaa dhalinyaradu yani markay shaqo raadsanayaan ama jaamacadihii ay ka soo qalin jabeen kuwii hore iyo kuwa hadda ka soo baxayaba yani ma leh yani wax la yiraahdo skills markaad shaqo raadsanayso waxa muhiima inay la socoto wax loo yaqaano skills ama xirfado shaqo inaad leedahay baa muhiima waxa kaloo qayb ka ah dhiirigelin la'aanta haysata ardada gudaha wax ku soo bartay tusaale ahaan marmarka qaar waxaad arkaysaa arday ku leeyahay saaxiibo anigu waan tahriibaya waxaad leedahay niyo maxaa kugu dhacay oo aad u tahriibaysaa wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan baasaboor soo qaato markaan baasaboor soo helo halkaas waxaa yani waxa suurtagal noqonaysa inaan shaqo helo si fudud waliba shaqo ku helo fikirka waxaa abuurmay oo ah qof walba oo dibadda baasaboorka ka soo qaatay inuu halkan ka shaqo ka helayo si fiican fikir noocaas abuurmay xataa haddaadan adigu haysan shahaado markaas yani aadan haysan markaas saxan aadan haysan baasaboor aad wadatid waxaa inta badan boqolkiiba yani 60-70 suurtagal noqonaysa inaad shaqo hesho
marka taasna aad bay saameyn ugu yeelatay oo waxay hoos u riday hamigii dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha dalka wax ku baranaysay runtii arrintaasna qayb bay ka tahaan dhihi karnaa. waxaa kaloo qayb ka ah yani qaabka shaqo qorista runtii oo aan ahayn qaab saxan oo inta badan musuq maasuq yani inta badan lagu xanto ama lagu eedeeyo. tusaale ahaan hay-adaha dawliga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha aan dawliga ahayn iyo yani local NGOska dhammaantood waxaa inta badan la sheegaa in ama lagu eedeeyaa inaysan nidaamkii saxda ahayd aysan u marin markay qaadanayaan shaqaalo qaadanayaan. waxaa kaloo qayb ka ah shaqa yani in dhalinyaradu mas-uuliyadda aan wax ka saari karnaa. dalka saad og tahayba marmarka qaarkood waxaa ku yimaada abaaro runtii saameyn ku yeesha guud ahaan dalka hadday ahaan lahayd magaalooyinka iyo miyiga. abaaraha si gaar ayay miyiga saameyn ugu yeeshaan. dadka miyiga jooga waxay sababtaa in yani ay soo haajiraan oo magaalooyinka usoo haajiraan ayagoo nolol raadis ah oo runtii laga yaaba inay xoolihii dhaafeen. taas bulshooyinkii miyigu marka waxay badinayaan bulshooyinkii magaalada. haddii magaalada la yimaadana dee geela lama raacayo, arina lama raacayo. waa inaad wax barato si aad ugu yaraan skills aad leedahay si markaas aad ula soo baxdo quutunyoonkaagii aad ula soo baxdo. taasina waxay sii kordhisay baan dhihi karnaa shaqo la-aanta haysata dhalinyarada. aad ba umahadsan tahay. waad ogsa saacid sidaa hadeerta aad sheegtayba dhalinyaro badan ayaa jaamacadihii ka baxaya. marka su-aasha halkaasi ka dhalanaysa waxay noqon doontaa waajib miyaa arday walba oo jaamacadda dhameeyey inuu shaqo helo? waa su-aal runtii samaynteeda leh. xoogaa waxaan ka jeclaan lahaa inay tirahdid muhiim miya, laakiin waa su-aal muhiima. waajib ma ahan qof kasta oo jaamacad ka soo baxa inuu shaqo helo, laakiin waxaa muhiim ah qof kasta oo jaamacad ka soo baxa inuu shaqo helo aad bay muhiim u tahay iyadoon ka eegeyno dhowr meelood. tusaale ahaan qofkan isaga ah ama ardaygan isaga ah wuxuu u baahan yahay ama wuxuu u baranayaa inuu yeesho mustaqbal qurux badan oo ifaya inuu gaaro buu wax u baranayaa oo bug iyo qalinka u sitaa. wuxuu kaloo wax u baranaya oo bug iyo qalinka u sitaa ama waalidkii ama familigiisii ama parentskii runtii muddada lasoo daalaadhacayay nolosha laga yaabo adag inay kusoo kordhiyeen oo laga yaabo inay yani siday ku keeni jireen fiiga iskuolka ama jaamacadda runtii ay aad u adkeyd dhib usoo mareen inuu maalin unu abaalgudo. runtii waxaa meesha ka baxay marka hadduu waayo arrimahaas meesha way ka baxayaan. waxaa soo gelaya marka inuu ardaygii ku fekero sideed nolol ku samaysaa, sideed nolol tan ka qurux badan ku heshaa. tahriib aa laga yaabaa inuu ku fekero. waxaa laga yaabaa inuu ku fekero inuu amni darada dalka ka jirta qayb ka qaato. waxyaaba noocaasa ayaa laga yaabaa inuu ku fekero. marka aad bay muhiim u tahay. waajib maaha laakiin waa muhiim baan leeyahay. si fiican. ayb ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay heerka shaqo la-aanta marka laga hadlayo soomaaliya? ilaa intee buu gaarsiisan yahay heerka shaqo la-aanta? runtii lama soo koobi karo shaqo la-aanta dalka ka jirta, gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee la filayay inay yani si degdeg ah filayay inay si degdeg ah runtii shaqo u helaan ama ay wax u qabsadaan una abaalgudaan yani dadkii markaas wax soo barayay ama muddadii ay kusoo yani soo gacan hayay ay u abaalgudaan. runtii waxaan oran karnaa Soomaaliya oo ah wadan muddo dheer yani kusoo jiray deganaansho la-aan siyaasadeed iyo dagaalo, sidoo kale kusoo jira abaaro, waxbarasho la-aan, runtii fayad dhowr xumo ayaa horseeday runtii dhaqaale burbur aad yani u dheer oo saameyn xoogana yeeshay. arrimahaas waxay qayb ka yihiin su-aasha aad weydiisay. sidoo kale waxaan oran karnaa sida uu bangigu adduunku saadaaliyey sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay baa oran karo wuu saadaaliyey sanadkii hore. waxaa la filayaa in dhalinyarada ama la filayaa waqtiyada soo socda dhaqaalaha Soomaaliya inuu kor u kaco siday sheegeen. laakiin waxaan oran karnaa ma sheegi karno ama ma qiyaasi karno arrintaas ay saadaaliyeen qaabka ay yani door uga qaadan karto inay dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur hesho oo shaqooyin helaan. runtii ma qiyaasi karno ilaa iyo haddana wax cad ma ahan. waa Sheekh Saacid, ka waran suuqa shaqada nidaamka dawliga ah soo lama dhihi karo aad buu u hooseeyaa? waa su-aal muhiim ah xasanow. inkastoo ay jiraan dhaliil badan
jiraan dhaliilo badan oo nidaamka shaqaale qorista dowladda la xiriirta ah weli runtii waxaan filayaa inaan la meel marin siyaasadda shaqaale qorista haddana waxaa sanadihii lasoo dhaafay runtii sii kordhayay ilaha yacni shaqaalaha haba iska yaraatee dhalinyaro badan markaas aan oran karno waxaa ugu abuurmay shaqo haba iska yaraato ayadoo ay sidaas yani ku abuurmeen shaqooyin aan dhihi karno 10 shaqo ama 100 baan dhahni ayaa haddana waxaa inta badan ama aad looga dayriyaa inaysan jirin yani nidaam sax ah oo runtii ku kala xisaabtamaan ama isla xisaabtan uu ku dhex yimaado dowladda iyo shaqaalaha oo aad arkayso qof shaqaale ah oo mushaarkiisii ama yani wixii gunada lahaa ka cabanaya oo yani layma siinin baad arkaysaa inkastoo hadda dowladdan ay aad iyo aad arrintaa isaga xil saartay aadna aan uga mahad celinayn wahagaag Ustaad Saacid saa la socono dalkana Soomaaliya waxaa ka jira shirkado badan oo si gaar ah loo leeyahay ganacsato badan oo shirkado waaweyn ayaa jira ganacsato muxuu ahaay shirkado yaryar hadeer sameeyay ayaa jira guud ahaanba ka doorka ama door intee la eg ayay ka qaadan kartaa ama shirkadahaas ay ka qaadan karaan shaqo la'aanta masleedahay way dabooli karaan shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada qaar haysata waxaa si lamid ah waxaan dhihi karnaa si lamid ah sida dowladdu ay shaqooyinka u bixiso waxaa u bixiya shirkadaha gaarka loo leeyahay inkastoo ganacsatada Soomaaliyeed ay ammaan yani gaar ah ku mudan yihiin sanadihii ugu dambeeyay ama intii burburku jiray inay buuxiyeen kaalin muhiim ah runtii oo intay dowladnimadu Soomaaliya runtii daciifka ahayd ay kaalin mug la buuxiyeen oo dhalinyaro fara badan iyo hadii ay ku gacan qabasho fara badan sameeyeen marka waa arintaas waa wax jira waxa kale oo muhiim ah inaan xusno hay'adaha caalamiga ah UN-ku ay kamid tahay iyo kuwa maxalliga ah dalka yani door weyn ayay ayaguna ku leeyihiin arintan ayada tusaale ahaan hay'adaha gargaarka bixiya waxay muddo dheer ka shaqeynayeen shaqaalo yani caawinta dadka tabaalaysan taasina waxaan dhihi karnaa waxay abuurtay in dad badan ay shaqooyin helaan ama yani ay kaarfargareeyaan ugu yaraan wax un iska yaraatay ay kaarfargareeyaan marka waxaa kaloo muhiima yani sidoo kale sida ganacsatada yani ganacsatada gudaha ah qaabka ay yani ula macaamilaan si lamida ayaa hay'adaha yani ayaguna markaas localka ah ama kuwa banaankaba ah waxaa u malaysaa inay sharcigooda yani aad loo dhaliilo oo runtii sharciyadooda waxaad u malaysaa inay inta badan jeebkooda ku wataano shaqaalaha markay qoranayaan iyo nidaamkooda iyo yani inay markaa sharcigooda wataan ayadoo aad looga yani iyadana dhaliilo in nidaamkaas isaga ah dhalinyaradu inta badan ay la kulmaan wax la yiraahdo ama ay jirtaba qaab la yiraahdo shaqo dhamaashiyo oo waxaa maqan wax loo yaqaano job security ama yani job security wax qalad lagu yiraahdo ma jiro mashruuc baa maanta lagu siinayaa company baa ku siinayaa ama hay'ad caalami ah ku siinaysaa muddo buu ku egyahay waxa laga yaabaa sanad contractor inaad saxiixdo ama 2 sano ama 6 bilood ka bacdi waa ka dhamaanaya marka waa wax stable ama marka arrimahaas marka shaqada oo dawladda lagu yaqaan in joogto aad noqonaysid oo maxaayo si fiican wahagaag marka waxyaabo ma jiraan lagu dhaliili karo badan hadal haynto kale shirkadaha gaarka loo leeyahay waxa laga yaabaa in dhalinyarada qaarkood ay leeyihiin shirkadaasi muxuu ahaayay dad ay u gooni ay keensatay nidaamka qabiliga waa naqana Soomaaliga muxuu ahaay reer hebel loo keenay waxyaabahaas inay jiraan waxyaabahaas misleedahay marka waxa qabad hortaagan dhalinyarada mararka qaar inay u tagaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay shaqo ka doontaan labaan kala qaadayna xasanow shirkadana waa shirkadaha caalamiga oo dalka dibadiisa ah ka yimaado oo inta badan ka soo howlgala shirkadana waa local waxaan isku qabanayaa shirkadaha localka ah oo caadiga iyo NGOs-ka ayagana localka ah waa isku qaarad baan gelinayna qoladan kalena waa budo gooni u tuban qoladan ayada ah inta badan ee banaanka ka timaada kuma dhaqanto wadanka sharciyadiisa kuma dhaqanto
ama sharciga shaqaalaha dalka ay markaas joogaan kuma dhaqmayaan. waxay ku dhaqmaan sharciyo ayagu markaas ay wataan ama wadanka ay ka yimaadeen ama say u sheegaanba sharciyada caalamiga ah bay ku dhaqmaan nidaam ay yidhaahdaan. halka shirkadaha gaarka loo leeyahay ama kambaniyada gaarka loo leeyahay iyo yani local NGOska ama waxa loo yaqaan non governmental organizationadu ay ku dhaqmaan sharciyo gacan ku samayso ayagu ay samaysteen, dabcanna sidii markaas ayaga aragtidooda iyo markaas maslaxadooda ku jirto ay markaas yani u taxliiliyaan. marka waana taas midda keenaysa in la waayo dee hufnaan shaqo iyo in qof sax ah loo helo shaqo saxan, shaqadii saxda ah in qofkii saxda ah ku aado yani waa aad bay u adkaanaysaa. maxaa yeelay dee ma jirto nidaam sharci oo dowladeed la raaci maayo, qof walba tiisa unbaa jeebkiisa ugu jirta. ayadoo saas ay jirto waxaa jira horumar xoogana jira dalka ka socda. haddeerto sanadihii ugu dambeeyey qurbo joog ayaa soo laabanaysa, shirkado badan ayay fureen. marka horumarkaas la taaban karo ma is leedahay fursad waxay dhalinyaradu u haystaan inay shaqo helaan? si fiican waxaa abuurmay marka loo fiirsho sanadihii hore iyo sanadkan hadda aynu ku jirno. runtii waxaa dareemi kartaa inay kala duwanaanshiyo inay jiraan. hay-adaha wax shaqaalaysiya hadday ta dowladda tahay, hadday shirkadaha gaarka loo leeya tahay, hadday kuwa caalamiga tahay, kulli hadday tahay qurba joog dalka dib ugu soo laabanayso maalgashi samaynaysa tahay, nooci doonaba ha ahaadee. runtii waxaad dareemaynaa sanadkan sanadaha soo socda waxay noqon doonto ila og, laakiin sanadihii hadda lasoo dhaafay oo ugu dambeeyey 2018kii ilaa hadda 20 hadda bilow noo yahay, waxaan dareemaynaa inay soo kabasho jirto oo runtii qeyb lixaad le ay ka qaadanayaan dhammaan institutionadan kuu sheegay oo dhan. qeyb lixaad le ay ka qaadanayaan in soo koraan dhalinyaradu, waxqabsi bilowbaan, ay bilaabaan runtii waxyaaba fara badan aynu ku dhiirin jirin markii hore inay ku dhiiridaan. waxaad dareemi kartaa hadda dowladda oo kale tusaale haddaan kaa siiyo, dhalinyarada markii hore waxaa loogu khudbeyn jiray waxaad tihiin mustaqbalka birita baa la dhihi jiray, laakiin runtii waxaad malaysaa taas maanta in la garowsaday oo boosishino waaweyn oo muhiim ah oo dareemi karto runtii dhalinyaradu maanta ay kaga jiraan nidaamka dawliga ah, hadday noqon lahayd heer federaal iyo hadday ahaan lahayd heer state, intaba ay kaalimo muhiima kaga jiraan, shaqooyin muhiima hayaan, wasaarado mas-uul ka yihiin agaasimayaal yihiin, maareeyayaal yihiin. runtii waa dareemi karta ciidamadii ku jiraan, meel walba ku jiraan. marka waxaan dhihi karnaa waa arrintaas way jirtaa. waagabsha saacid shaqooyinka ay dhalinyaradu hadda ka shaqeyn karaan maxaa ka mid ah? sida saan la socno dhalinyaro badan ayaa jaamacadaha dhameeyey. dhalinyaro badan waxaa laga yaabaa ayagoo jaamacadda dhameeyey haddana ra'smaal fiican oo wanaagsan oo ay mashaariic ku furi karaan heli kara. marka ardayda shaqooyinka ay ka shaqeyn karaan marxaladan iyo horumarkan dalka haddeerta ka jira maxaa is leedahay maxaa ka mid ah? aad baa umahadsantay, waa su-aal aad muhiim ah. waan u malaynaya dhammaan su-aalaha weydiinaysa inay isku soo ururinayso. labaan u kala qaadaynaa. shaqo marka la yidhaahdo waa labo, inaad employee tahay oo adiga aad qof hoos tagto ama company hoos tagto ama nidaam markaas jira aad hoos tagto u shaqayso, oo aad tahay qof markaas la maamulo oo yani shaqadii markaas lagu manage gareeyo, iyo inaad tahay self employee oo qof isaga naftiisa u shaqaysanaya oo irsaaqadiisa raadsanaya aad tahay oo yani keligiis u taagan. labadaasaan u kala qaadaynaa. tan hore oo ah inaad qof shaqaale aad tahay, runtii waxay ku xiran tahay yani qualificationskaaga ama yani markaas waxaad soo dhamaysay ama waxaad khibradeeda leedahay iyo shaqada lasoo bandhigay sida ay related ula tahay waxa aad soo baratay ood wax uga qaban karto. taas bay la xiriirtaa, ma kusii dheeraanayno. laakiin waxa muhiimka ah waxa weeye markaad rabto inaad naftaada u shaqaysato, waxaa jira shaqooyin fara badan oo dhalinyaradu ka shaqaysan karaan oo muhiim ay tahay runtii intaad carari lahayd ama haddaad ba ku guuldaraysato inaad shaqaale noqoto inaad u leexan karto ay muhiim tahay, adigana naftaada muhiim u tahay, qoyskaagiina anfici karta, adigana aad wax kula soo bixi kartid. laakiin inta badan waxaa malaysaa dhalinyaradu inay si uga gambanayaano xoogaa isleeyihin arbay ceeb tahay, arbay kan tahay, arbay wax noocaasa tahay. waxaa kamid a waxaa loo yaqaana taylarka oo kale.
waxaa loo yaqaan harqaanka oo kale haddaad maanta istiraada waad maalgasho ama yani samayso waxaa umalaynaya usan lacag badan u baahnayn wuxuun xoogaa yar ama $1 ama $500 waa ku bilaabi kartaa adigoo yani dharkii waxaa jira mashaariic yar yar oo fudud asagana raasmaal yar uu ku furi karo hadhowna wax weyn uga soo bixi taylarkaasa kamid a ama harqaan ama dawaarle hadba saa u taqaano waxaa kamid a waxa loo yaqaan tuushin ama yani oo waxa loo yaqaano inaad yani dadku maanta aqoonta in badan aad bay ugu ooman yihiin dad badan oo waxaad arkaysaa waxaad khadka ka baxay oo in dhawaale aanan arkin waxa loo yaqaano yani home teacher ma jiro awal waa jiri jiray macallinkii guriga hadda ma jiro waxaad samayn kartaa intaad yani computer yar soo gadatid kursigii miiskii yaraa baad waxaad samayn kartaa yani small tuition yar oo aad ku maareyso si onlineana dadka aad ugaga faa'iideyso si bilawda dhalinyaro hadeerta bilawda luqada englishka oo kale social media in ayagoo guryahooda jooga ay muxuu englishka ay baraan waa u jeeday maalmihii ugu dambeeyey ha social media hadeerta xamuda badan dhalinyarada inay u leexanayaan dhanka ka faa'iideysiga in asagoo aqoontii la englishna yaqaana inuu saburo intuu soo qaato oo muxuu ahaay toos oo social media wax u baro oo dad badan markaasi ay ku soo xirmaan marka taasna waa jirtaa oo waa muhiim dhaqaale fara badanna kaama rabto runtii haddaad isku daydo ama u leexato faidaa tawakalta faidaa cazamta fatawakal cala allah bay ahayd aayaddii qur-aanka ahayd waxaa kaloo jira waxa loo yaqaano real estate agency waxa loo yaqaano ama inaad samayso nidaam maanta waxaad arkaysaa nin baa dibadda kaa soo wacay wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan guri gato waxaan rabaa inaan dhul gato waxaan rabaa inaan beera samaysto ma jiro nidaam saxan oo isku xiraya dadkii dibadda joogay ama qurba joogta ah iyo gudihii iyo dalkii iyo dhulkii hooyo nidaam isku xiraya ma jiro oo qofka dibadda jooga si toos intuu u yimaado uu linkiyo ama website uu ka akhrisan karo yani busishinada iyo sida uu kala haboon yihiin dhulku sida uu kala roon yahay iyo qiimihiisu meel ma jirto waa nidaam haddii dhalinyaro la helo u carbisan aad samayn karto oo yani shaqo abuur ku samayn karto iyadoon dhaqaale fara badan kaa gelin waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha u baahan dhaqaalaha badan uusan kaa gelin waxaa kaloo muhiima oo aad jirta waxaa loo yaqaan digital marketing agency oo iyadana muhiima tusaale ahaan waxaad arkaysaa waxaan ula jeedaa suuqgeynta waxaad arkaysaa qof ganacsada ah oo yani ama qurba joog ha aado ama qorax joog ha aado siday soomaalidu tiraahdo oo maalgashtay tusaale suuqa bakaaraha kale u maalgashtay waxaa u taala bakhaaruu furay ganacsi buu bilaabay ganacsigii yani maleh waxa loo yaqaano marketing suuqgeyn maleh ganacsiga waxaa laga yaabaa sanad markuu furnaado ama 2 sano furnaado inaad aragto meesha isxirtay qofkaasi waxaa haysa suuqgeyn la-aan baa haysa sidaas daraaddeed adigu waxaad samayn kartaa dhalinyaro waxay samayn karaan nidaam aan dhaqaalo fara badan kaa gelin oo u baahan runtii inaad hesho yani software yar iyo computerkaaga iyo xafiis yar intaad furato aad markaad samayn karto dadkaas ganacsatada lugahaaga intaad ugu tagto aad dhihi karto waxaan idin samaynaynaa suuqgeyn indho badanoo idinka sii jeedaan idinku soo jeedinaynaa wax yarna aad sintiya ka qaado ayagiina faa'iido ugu jirto markaas ganacsigoodii aad ummadda soo hordhigto u bayaamayso tusaalehaan waxaad arkaysaa boor meel ku dhegan boor tusaalehaan shirkad hebel baa waxay keentaa caano hebel baad maqlaysaa kuma filaa hal booroo meel lagu dhejiyey waxa ay rabtaa inay hesho yani waxaan loo yaqaano social mediaha in la soo geliyo si fiican loola socdo ilo kala duwan laga daawado si fiican social media laftigiisa youtube-ka in laga faa'iideysto oo muxuu afkaar badan inta laga helo kadib muxuu ahaayey maalgashi loo raadsado iyada laftigeeda waxyaabaha dhalinyaradu ay ku dhiiran karaan weeyo si fiican maalmihii ugu dambeeyeyba dhalinyaro badan baa hawshaas ku dhaqaaqday runtii aad baana ugu hambalyeynaya dhalinyaro kalena waan jeclahay inay ku daydaan runtii waa aalad laga sameeyo wax laga soo saari karo inkastoo ay u baahan tahay xeelad iyo qaab ay u baahan tahay weli waa sii wadaayo waxaa jira wax loo yaqaano juice park waxa la yidhaahdaa jiro oo aan ula jeedo sharaabka dalka lagu sameeyo ad kale waxaa dhaqaale fara kaa galayo waxaa u baahan tahay mashiin yar inaad soo habaysato labada mashiin keensato meel yar habaysato 500 400 laga yaaba inay kaa gasho dhaqaale fiican waa kaaga soo baxaa maalintii aad qoyskaaga ku dabirto wax un meel ka dhigato haba iska yaraatee waa wax jira dhalinyaro badanna ku dhiirata ilaa iyo haddana aan dhihi karo waa fursad jirta
oo waxaad arkaysaa meelo populationkeedu aad u fara badan yahay haddana aysan lahayn arrintan aan kaala hadlayo aysan lahayn. Marka waxaa loo baahay markaasoo kale intaad indhaindhaysaa tiraa meesha walaa macquul waa aad mashruucaaga shahaadada meeshaada ku taalo. waxaa kaloo jira bajaajtu waxay samaysay shaqo abuur fara badan runtii oo aan aad ugaga yani mahad celinayo ganacsatada. gabdhaha oo kale waxaad u malaysaa maalmihii ugu dambeeyay cilaasaar bay samaynayaan, shahaadadii way soo qaadatay, shaqadii way weyday, ma fariisanaya. gabdho waxaa arkaysaa maasha allah aad aan u ammaanayo, cilaasaar ay samaynayaan, burkiyaray furanayaan, waxba unbay isku darsanayaan, qurxintii gabdhahay samaynayaan, noloshooda runtii aad bay u maaraynayaan. waxaa kaloo jira waxyaabo gabdho aad yani qaarkood kartoomo yaryar iyo marooyin ba intay wax isku sameeyaan waxaa laga yaabaa inay ubaxyo iyo wax ka sameeyaano suuq geeyaan baa laga yaaba. runtii aad bay u badan tahay. haddaan dhahno waan tirinayna meelo fara badan ama ilo fara badan baa shaqo lagu raadsan karaa, aan oran karnaa runtii way u fududayn kartaa dhalinyaradu inay kaga baxaan arrinta haysata. waagaag Saad, ugu dambeyntii talo noocee ah ayaad usoo jeedin lahayd si shaqalaanta ay u yaraato? shaqo doonayaasha waxaan usoo jeedin lahaa fikrado runtii muhiima inta qalbigeyga ku jirta. runtii qofka dhalinyarada ah ee jaamacadda markuu gelayaba waxaan oran lahaa waa inuu kusii fekeraa. kow, haddii biri uu shaqo waayo inuu yiraahdaa balan A balan B balan C, inuu sii degsado, uunan ku talagelinba keliya inuu biri shaqaalo noqdo. biri haddaad shaqaalo noqon weydo maxaa kale oo yani kuu degsan waa inaad marka horeba sii qorshaysataa. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay bartaan waxay aad yani isugu dhabarjabiyaan inay noqdaan shaqaale ama cid kale ay u shaqeeyaan, runtii aad isugu dhabarjabiyaan, taasoo bedelkeeda ay ahayd inuu markaas shaqo abuur sameeyo, shaqooyinka hadda soo sheegnay uu samaysan karay. runtii waxaa kaloo jirta in dhalinyaro badan ay yani ku fikiraan keliya inay yani jaamacadda dhameeyaan, fikirkoodu yahay bal bahashaan maalin iga dhame, laakiin aanay lahayn xirfado markaas ama waxyaabo kale oo muhiim u ah goobta shaqada ama qofka shaqaalaha loo noqonayo ama loo shaqeeyuhu uu biri ku xujayn karo aynan lahayn. marka taasna aad baan ugu dhiirangelin lahaa inay xirfadahaas la yimaadaan. waxaa kaloo jirta maamaha Soomaaliya oo dhahaysa geela gal garoorkana ka keen. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku qafilan inay yani waxa ku qafilan abad bahasha mar dhamayso isla markii biri horaad shaqaad ka helaysaa oo yani ay soo dedejiyaan yani isku programyaan inay shaqadii helayaan. marka shaqada labaad noqon kartaayo, qof hore usoo shaqeeyeyna waad noqon kartaa, qof markaas freshna waad noqon kartaa. markaad qof hore usoo shaqeeyey tahay waa ka fursad badan tahay kan freshka ah oo aan hore usoo shaqeyn. markaad fresh tahay waxaan la talinaya waa dadka freshka ah oo hadda jaamacadaha kasoo qalin jabinaya. markaad qof fresh tahay oo hadda jaamacadda kasoo qalin jabinaya waxaad u baahan tahay inaad wax samayso wax loo yaqaan internship ama la yiraahdo yani ishaq xirfad shaqo ku bedelasho inaad samaysid, oo markii shaqo aad heshid lagu yiraahdo niyo annaga de khibrad baanu rabnay 3 sano khibrad inaad leedahay rabnay, khibradii ma lihid. marka waa inaad ogolaataa inaad si volunteer ah sanad ama bilooyin ku shaqayso si markaad khibrad u hesho, halkaas khibrad uga hesho. ugu dambeyntii dhinaca kale loo shaqeeyaha ay ka mid ka yihiin dowladdu ay ka mid ka tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay, hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahaynba, ayagana waxaa muhiim ah ama usoo jeedinayaa inay yani isticmaalaan nidaam daahfuran oo runtii isku mid ah siinayana dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday rag tahay iyo hadday dumar tahay, hadday tahay qurbad joog iyo hadday tahay yani kuwa gudaha jooga, hadduu baasaboor ajnabi haysto hadduunan haysanba, inay sameeyaan nidaam daahfuran oo dhalinyaradii siinaya fursado isku mid ah siinaya. Saacid aad iyo aad u mahadsan tahay sida wanaagsan barnaamijka aad nagala qayb qaadatay. waxaana mawduucan uu ku saabsanaa shaqo la'aanta dhalinyarada haysata. runtii aadaan kaaga mahadcelinaya sida wanaagsan hufan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay. daawadayaal, barnaamijkeenii barbaarta oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay shaqo la'aanta haysata dhalinyaradeenna Soomaaliyeed iyo sidii looga bixi lahaa, waxaana marti noogu ahaa Ustaad Saacid Xaaji Aadan oo ku takhasusay amaba ah maamulka iyo maareynta.
aad buu u mahadsan yahay waqtigiisa qaaliga ee sida wanaagsan uu barnaamijka nogala qayb galay idinkuna aad baad u mahadsantihiin waa inoo toddobaad ka dambe haddii ay baraali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu